dadka Soomaaliyeed ee ku nool carigaas iyo Kenya waxaa la idin diroyaa digniino culus kadib markii dhacdadii xanuunka badneed hooyada Soomaaliyeed gabadheeda iyo gabar kale sidoo kale familka wax isku ahaayeen lagu jarjaray la dhigay jirkooda qayb ka mid ah meel ka tirsan Kenya marka dhacdada xanuunka badan waxaa la leeyahay dad xanaaqsan oo caraysan oo Soomaalidu u soo jeesteen ayaa arrinkan sameeyay marka dadka Soomaaliyeed qaasada gabdhaha Soomaaliyeed is ilaaliya habeenkii qaasatan is ilaaliya sidoo kalena u socda koox Soomaalida horta Kenya si fiican u degeen Kenyatigana maalinta ka dambeeyay waxa laga qaadanayaa goobihii ay deganaa jireen Soomaali ayaa la wareegayso marka dadka Soomaaliyeed meeshaas caro ayaa ka dhalanayso wayna ka dhalatay Kenyati badan ayaa ka soo horjeeda Soomaalida marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed inay is ilaaliyaan sidoo kalena dalkiina u laabta dalkiina maalgeliya hadda dalkiina nabad ayuu soo noqday meelo badan ayaa nabad ah ka faa'iideysta dhista dadka Soomaaliyeedna yeeso ku noqon kaliya Kenya oo Kenya ay ka dhisin daara dheer kuwaasoo laga yaabo future-ka inay la wareegaan Kenyatiga marka dhulkaaga hooyo ka dhiso sidoo kale maalgeli waxaan leeyahay horta Ilaahay ha u naxariisto maamadii iyo gabadheedii gabadhii kale sidoo kale meesha lagu jajaray oo sida arxan darrada loo dilay wax lagu tilmaamay yaqaan dadka waxay leeyihiin dhacdadan waa dhacdo la yaab leh mudaaharadyo weyn ay dhigan Soomaalidii marka is ilaaliya Soomaaliyeed mudaaharad laakiinse is ilaaliya